madaxda sarsare ee xisbiga kulmiye ayaa maanta waxa ay isku arkeen xaflad si heer sare loo soo agaasimay xafladaasi oo uu ka qayb qaatay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbigaasi Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici iyo madax kale oo sarsare waxa xafladaasi loo soo abaabulay looguna talagalay taageerayaal cusub oo xisbigaasi ku soo biiray kuwaas taageerayaashaasi ayaa waxa kamid ahaa injineer Cabdinaasir Maxamuud Qowraxo iyo Sheekh Daahir Magtiro oo iyagu sheegay sababaha ku kalifay in ay xisbigaasi hadda taageeraan inaan xisbiga kulmiye si looga beerin oo aan ka baxay adduunka farxadiisa waxaan ballan qaadaynaa inaanu isbedelkan aan wadno aanu beelihii ka saarnay aanu qabiilkii ka saarnay maanta ololihii wuxuu gaadhay isbedeldoon boormaan ku wadaynaa soo saamahay balanteenu boormaan ku wadaynaa isbedelkana boorama kulmiyeenu kaga dhalanaynaa haddii ilaahay salaada kadib inaan nahay beesha xamed haddaan nahay isbedeldoon kana soo baxday xusbigii la odhan jiray maxaadaanay udub oo galli taageerayay waxba ku weyey cadaasig iyo dhibuna kala kulannay waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay madaxda xisbigaasi kulmiye oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka ee xisbigaasi Ibraahim Aadan Qaalib oo isagu aad u soo dhaweeyay beesha ahayd udub waxaan ku ammaanayaa beesha inay ra'yigooda kala duwan yihiin anigana ay ugu taageeri jireen halka jirto waxay ka soo taraya sida baaxadda leh ee beesha makaahiil ay uga go'an tahay inay qayb libaax ka qaataan sidii looga badbaadin lahaa dalkani inuu baaqi ku sii ahaado xaaladan uu ku sugan sidoo kale waxaa halkaasi isaguna ka hadlay Cabdiraxmaan Saylici oo ah musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbigaasi oo na tilmaamay inuu aad iyo aad ugu faraxsan yahay in ay taageerayaal ku soo biiraan xisbigooda salaan kadib maanta rus ilaahay baa mahadle ilaahay isku keenay xaflada aad sida fiican loo soo agaasimay halka maanta isku keenay waxaan aad iyo aad maanta ugu farxada runtii sababta ugu farxada waxa weeyaan waxa maanta soo dhaweynaynaa waa beeshii reer Axmed waa deegaankii gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Xeeboorama oo awooddoodii iyo quwaddoodii nagu soo biiriyay oo galibba naga maqnayd inteedii badnayd oo maanta tabaynay galibba aad iyo aad doontaan u soo dhaweynayaa walaalahay waxaan aad ugu mahadnaqayaa garashada ay garteen in maanta dalku isbedel u baahan yahay Soomaalida xataa ninku xigaba la ka xiga waxa weeyaan walaalkii waan dooranay shalay wala tartamay walaalkay kale oo Cabdiraxmaan Cali Bagarab joogan waan taageereynay kii la siiyay ayaa helay waxa sababta joogtaa wax xisaabtan ninka maanta gartay codkiisa halkuu dhigay deeyo qasaaray iyo inuu faa'iiday yaani ku maharadiisu xisaabiya ninka 7 sano joogay ee maanta geednay loo beeray ma bad garateen in maanta isbedel loo baahan yahay taasi baa aad iyo aad u qabanaya Xasan Ciise